cabdirashiid daahir axmed oo ah gudoomiyaha ururka sahal oo ka howlgala magaalada london ee dalka britain waxaan wax ka weydiin doonaa arrimaha taageerida ee Jubbaland. marka hore cabdirashiid kusoo dhawo telefishinka Kalson TV, maxay tahay waxa gaarka ah ee aad Jubbaland ku taageertaan oo mar kasta ugu sameysaan barnaamijyo kala duwan oo aad ugu taageereysaan Jubbaland? waxa aan kaga soo horjeednaa madaxweynaha Soomaaliyeed oo aan ognahay maanta inuu yimid magaalada London shirkaas halkan caalamku maanta isugu yimid ayaa waxaan rabnaa inaan u sheegno in madaxweynuhu nidaamkii lagu soo doortay dawladda federaalka ee Soomaaliya inuu ka leexday. warar hoose waxay sheegayaan in la haybtihiin deegaanka dadka hadda maamulka ku dhawaaqay isla markaasna aysan ahayn dad u dhameystiran maamulkaasi qabiiladii kala duwanaa ee gobolkaasi degana. marka idinku si gaar ah ayaad u taageertay idinku haybahan ku raacaya arrimahaas ma inkaraysaa gudoomiye? waxaan dhigi karaa waxba kama jiraan. danta aan ka leenahay waxa weeye in aan haba yaraatee wax deeqa aan la siinin dawladdan Soomaaliyeed kaliya haybahan hadii la dhaho ma degno muxuu ahaa Jubbaland oo kaliya. arrintaas in badan bay soo noqnoqotay oo xitaa aniga interview hadda ka hor aan bixiyay baa la igu weydiiyay. ma waxaad inkiraysaa hadalkii madaxweynaha ka soo baxay oo sheegaya inaan loo dhamayn isla markaana hadda dawladii wafuud kala duwan oo xataa loo diray loo diiday taasi ay tahay mid qabiil kaliya uu ku kuliyeysatay halkaasna ay qabyaaladii ka muuqato? ma waxaas oo dhan baad gudoomiye iska indhagartiri ka dhaaf? madaxweynuhu runtii waxaan filayay inuu madaxweyne u yahay dhammaan muxuu ahaa waddanka Soomaaliyeed, laakiin waxaa muuqata oo aan aragnaa in caga juglayn iyo handadaad iyo harassment joogta in lagu hayo shacabka reer Jubbaland. taa marka waxaan dhihi karaa dawladdu iyadu inay dib u heshiisiin iyo dawladnimo inay muxuu ahaa ay lead garayso baan ka filaynay anagu, laakiin uma filaynin. cabdirashiid aan warka goosgoosanay waxa gaarka ah ee idinka kaga dhex muuqda maxay tahay haddaysan jirin qabyaalad aad ku taageeraysaan maamulkaas? runtii anagu waxaan dhihi karnaa ma aha qabyaalad ma aha. marka waxaad moodaa dawladdu nidaamkii u yaalay ee ahaa dib u heshiisiin inay muxuu ka bilowdo Soomaaliya labada sano ee ugu horeysa ama oo ay u diyaariso one man one vote inay axad moodaa. haddaad ururkiinu yahay dib u heshiisiin iyo inaad dadka Soomaaliyeed dhexdhexaad u tihiin cabdirashiid sida la socotidba dhawaantan maamulo kala duwan baa looga dhawaaqay markaa isku celceliso dhammaan sawirka baxay oo dhan waa hal qabiil ama dad isku hayba siyaasiyiin isku hayba. miya arrimahaas oo dhan sacab la saari karaa? horta waxay la mid tahay waad la socotaan xasan sheekh maxamuud doorashada hadda ugu dambeysay Muqdisho lagu galayay hal famil bay ahaayeen, laakiin waxaan dhihi karnaa waa arrin ay ka dambayso dawladdan federaalka oo muxuu ahaa laga hogaaminayo Muqdisho. dawladdu way cadeysay mowqifkeeda cabdirashiid haddaan indhaha la iska tirayn. waxay sheegtay inay arrinta ugu weyn ay tahay inay dib u heshiisiin iyo in dadkii deegaankaas deganaa si dhammaystiran ay arrinta oo wax uga qabto maamulkooda samaystaan, laakiin waxaa moodaa in hal garab keliya ay iyagu wax marorsanayaan. waa taataal meesha laga muransan yahay, waxaana mararka qaarkood soo baxa eedeemo kala duwan oo dadka beelaha deganaa ay meelaha kala duwan ka hadlayaan saxaafadahan u sheegayaan in aysan raali ka ahayn waxa ka soo baxay Jubbaland gaar ahaan magaalada Kismaayo shirki ka socday. dhammaan waxyaabahaas oo dhan haddii la xeeriyo meel dhex la isugu yimaado maxay ku diidantiin qolihiina Jubbaland taageersan? cidda wax diidan waa dawladda federaalka weeye, cidda doonaysa in ay wax muxuu ahaa leexiso oo ay Soomaaliya dhibkii iyo rafaadkii laga soo baxay dib ugu celiso waxaan dhihi karnaa waa dawladda muxuu ahaa federaalka Soomaaliya weeye. maxay tahay marka haddii ay jirto dhawaaq ma ka imaan lahayd? waa kuwa shirar kala duwan qabanaya, waa kuwa cambaareynaya shirkaasi. taas waan kaaga jawaabaysaan moodayay oo inta warga ka wamay Soomaalida ku maamaadaa ma aha dadkii matelayay dadka meesha degan ma aha, waa dad dawladdu ay ka dambayso oo doonaya in qaabka dawladdu ay wax u doonayso muxuu ahaa inay wax ugu fuliyaan ma aha. dawladda waxaad moodaan in eedeyntu iskaga dhacayso, laakiin hadda ururka IGAD aan soo qaadano karo shirki ay ku yeeshay magaalada Addis Ababa waxay ku sheegeen in dawladda looga dambeeyo wax kasta, waana dawladdii dhexe ummadda Soomaaliya u dhaxaysay. soo ma aha marka taas macnaheedu weli inaad khaladkii ku taagantihiin ummadda Soomaaliyeed iska indhatiraysan waxa meesha ka jira. maxaa ku jaban haddii dib u heshiisiin la qabto oo dib loogu noqdo arrintii, ama dib u heshiisiin dadkii dhan garbiya dhan la iskugu yeero oo lagu qabto shir Muqdisho deetana dawlad wada jirta oo maamul goboleed rasmi oo dadku ku raali ku yihiin lagu wada sameeyo? taas waxaan dhihi lahaa runta waa inagoo caawa dhahna waa caawa aniga oo dhaha nidaamkii ku meel gaarka dib ha loogu noqdo. marka arrintan waa arrin ka horeysay dawladdan hadda jirta, laakiin nidaamkan nidaam ka horeeyay ayuu ahaa. wali cabdirashiid ma waxa taagan tahay maamulkani ma aha qabiil isku hayba waxa weeye dad isku jira oo gobolka wada degan? isku hayb ma aha, intii ilaahay markii horeba ka dajiyay ee deegaanka ahaa way u dhan yihiin
dawladdu waxay isku dayday arrinta iyada in Kismaayo ay xabadi ka dhacdo dawladda ayada mas'uul ka ah dhammaan gabi ahaan dalka Soomaaliya ammaanka iyo dib u heshiisiintana waxyaabaha ugu muhiimsan ay qaadayso way horena u sheegay madaxweynuhu inuu 6 qodob ku maamulayo dalka Soomaaliya oo ay ka mid dib u heshiisiinta qaybahaas oo dhan iyadoo la qabanayo uuna ka digay hore uga digay madaxweynuhu inay tan imaanayso dhammaan waxyaabaha hore uga digay dawladda barnaamijyada hadii laga leexday inay tan imaanayso ma karaysaa heshiisiintu hadii dhinac kasta loo halo dhigo siyaasadda dhinac kasta u eega idinku hadaa doonaysa laakiin dib u heshiisiintu Soomaaliya wax muhiim ah in dadka loo sameeyo halka marka waxaad ka aragtaa waxa loo jeeda maaha maamulka maaha يعني عيد قونية لو كذا بعد مدامات دولته سيداس ما يصورن وحي موجسي إن ديار تهاي وذا شقين تا يسد مامل كاسي أي شرعي يدبهشيسين تي يتستور كأي تحجل نيسو وحلو صدرت مدحونا وفدراليزم يدو سيداتا لكن إذيك أيا لنعك الأرغي وحاربتان إن كليا مررستان وجددي يربطان كي مامل كي يددكي ديغان كاسو كسرنا لما وحيابها صورن ما وحنا ينكري كلا أنا نقول يا حقيقة عدة واحد ديدن أو مروة البا كرسي كانوا يسوفر يستد ديدن أو كعر رئيس ودولة فدرال كاوي عدة مركب واحد مدمر الباب ديدن نظام كان يلا ودولة دوي واقع ما ملكنا هذا إن جبلان دولة وحي شكتي إني وفود ودريسو وفود كلا دوانا هراء وقدرته واحد لو أنا هم بدمقليسين إن أي كحيرناين وسيرة جرانك تاسومها مركا إن أودي لو ريكتين وأدوني سامبا إن الدولة دي أخاك جلسان مركا حق وحلو ليهي الباب كإنه سنسكسو تشبينين الباب كمركا رينا يقرعان دولته يعني سباي وكله قابكي محوها ديارنا لوجين قرا اسكسو قرش ايربورك تاوي تدباتده كينه زمان واقع عبد الرشيد مرة قاركود dadka Soomaaliyeed inta badan hadalada ama meelaha kala duwan ka hadlaysa dhageysta waxa la yiraahdaa Abdi Rashid waxa uu ku hadlaa hadallo markasta dadka Soomaaliyeed kala geynaya oo ama xanaf leh waxyaabahaas ma la socotaa صادق لبا socdo waliba gobolka Hiiraan baan ku soo karay xaqiiqiyan uuna iga xigaa gobolada Abdi Rashid miisan qurux badnayn hadii aad ururdan gudoomiye u tahay aan horena u sheegtay in ajendiinu yahay dib u heshiisiinta Soomaaliyeed in dalka Soomaaliyeed dib u dhis lagu sameeyo oo dadaal dheeraad laga galo arrimahaas in aad markasta ku dadaashaan dhanka nabadeynta iyo wada hadalida Soomaalida balse aad hal group ama hal qayb in taageerin waxa hadda anaga qorshahanaga kamida oo plan B noo ah Jubbaland already hadda way tagtay qorshaha hadda ku noo xigaa wuxuu yahay cid kasta oo dulman oo 22 sano ee Soomaaliya burbursanay la dulmayay in aan isku dayno dulanka inaan ka qaadno waxa gaarka oo idinka dhax muuqanaya waa maxay marka wadanaha gaarka idinku jira ururkeen wax inaba dana gaar ah oo anaga hadda nooga muuqda horta masab cidna anagu kama doonayno halkaan u dhigo soo lama oran karo waa ku borqarsanaysaan waxa rabtaan kaliya arintii waxay Kismaayo oo kaliya iyo inaad deegaanka aad ka soo jeedaan inaad marka horeysa aad halkaas la gaadhaan oo aad ka mira dhaleysaan waxa raadinaysan balse in meel kale u socon oo taa ay ka aad kaliya in dhinac haybta oo aad wax ku taageertaan waxaan dhiilaa kulay wax walba horta in la hordhaco ma fiicna waxaad moodaa hadda way qoyan tahay arrintan hadda Jubbaland muxuu maamulka lagaga dhawaaqay kulay ficilladana ay ka mid noqon doontaa ama waad arki doontaan stepka labaad ee aan qaadi doono insha Allah maxay